بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا ونكسن أغيرته هودي نجدا وتايمل كستو أجوبتان كسو دوادا وربحين دق كونيجا كندياها مقالة ويلمر إيو كومشين كهرمارينتا يدقالها waxay ku faraxsan yihiin in idin la wadaagaan in barnaamij dhaqaale horumarin daryeelka carruurta laga hirgelin doono. barnaamijkan wuxuu horseedi doonaa diin cafin dadka haysta baraha lagu xanaaneeyo carruurta. waxaan haynaa ayay dhaheen dakhli lagu caawin doono dadka hadda u furan yihiin xarumaha jaaldhikeerada. dadka daneynaya inay furtaan xarumaha carruurta lagu daryeelo. shakhsiyaadka iyo ganacsatada daneynayso inay hirgeliyaan xarumo cusub ee xanaanada carruurta. sanadkii tegay November 2022 hay'adda EDC waxaa la guddoonsiiyey $200,000 oo doolarka Ameerikaanka ah oo ka timid lacagtaasi wasaaradda shaqaaleysiinta dhaqaalaha iyo horumarka. sida awgeed magaalada Wilmar iyo Kandiyaha County waxay iyaguna lacagtii hore mid u dhiganta ku bixiyeen sanduuqan. isku dar lacagaha hadda la hayo waa $600,000 oo doolar ayaa hadda loo hayaa kobcinta iyo ku taageeridda xarumaha carruurta lagu xanaaneeyo. barnaamijkan waxaa maamuli doona hay'adda EDC iyagoo ay la kaashanayaan hay'ado kale sida UCAP. dabayaaqada samarka waxaa la qaban doonaa xaflad lagu shaqaaleysiin doono dadyooga daneynaya daryeelka xarumaha xanaanada carruurta. lacagtan waxaa lagu abaalmarin doonaa 6 waxyaabood oo ay ka mid tahay diin cafin, lacag u celin, tababar, caawimaad shaqaalaha, transportationka, gardaadin farsamada iyo daboolidda baahiyaha luqadda. haddaba waxaa la qabanayaa arjiga ku saleysan diin cafinta, transportationka, waxyaabaha technicalka ah iyo daboolidda baahiyaha luqadaha. waxaasoo dhan arjigiisa hadda waa furan yahay, applicationkiisa waa la qaadanayaa. saare gabadha la dhaho oo ah madaxa horumarinta ganacsiga ee EDC u qaabilsan waxa ay tiri lacagahan oo badan waxay ku bixi doonaan lacagahan inta badan dabcan waxay ku bixi doonaan diin cafinta ilaa iyo $12,500 oo doolar dadka haysta adeega ama ganacsiga. waxaa kaloo loo isticmaali karaa dadka guryaha ku haya carruurta oo kale waxaa la siin doonaa $40,000 oo doolar oo diin cafin ah. diinta cafinteeda dadka aan kala saaro dadka dhaykarada u furan yihiin xarumaha carruurta lagu hayo haddii deen lagu leeyahay $12,500 oo doolar la siinayaa oo diinta looga cafinayaa. dadka guryaha ku hayana waa $40,000 oo doolar insha Allah. aan kasii gudubno marka dhammaan waxaa loo isticmaalayaa lacagahan la hayo casriyeenta playgroundada horumarinta meelaha carruurta lagu hayo jaaldhikeerada. haddaba haddii aad daneynayso wixii faahfaahin halkan dheeraad ah waxaa kala xiriiri kartaa EDC barta ay ku leedahay www.kandiyaha.com ama nambarkan ayaad kala xiriiri kartaa. nambarka kala xiriiri karta waxaa waaye 320-235-7370. haddaan Soomaali ku sheego waa 32 sidoo kale waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa gabadha la dhaho Saarah oo ah horumarinta ganacsiga EDC. iyadana waad la xiriiri kartaa wixii aad u baahan tahay. haddaba mar kale aan idinkugu celiyo haddaa u baahan tahay in lagaa caawiyo inaad xarun daryeelka carruurta dhaykeerada lagu hayo aad furato, gacmo furana lagugu soo dhaweynayaa, waa lagu caawinayaa. wax allaal waxaa u baahan tahay yacni inta loogu talagalay budgetkan oo lagaa caawinayaa. hadday kuu furan tahay xarun dhaykeerna deen lagugu leeyahay, waxyaabo badan u baahan tahay, casriyeenta yacni everything u baahan tahay, barnaamijkan uu ku anfacayaa. la xiriir dadka ilmaha guryaha ku hayo kaleeto sidoo kale oo dhaykeerada u ah oo guriga u furan, iyagana waa la caawin doonaa insha Allah. qofkii barnaamijkan aa u malayn karto inuu wax u tarayso fadlan la share gareey. wixii su'aal ah qabtid hoos waa kusoo qori kartaa, telefoonka ku sheeg waa la xiriiri kartaa. inta barnaamijka mid lamid ku kulmi doono kulan wacan nabadiina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.